bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay 20ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2020 qodobada wararka maanta idiin heeno saaxiibayaal waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhuusamareeb 3 iyo madaxweyne Farmaajo oo doorashooyinka dalka go'aan lama filaan ka qaatay madaxweynayaasha Saciid Dani iyo Axmed Madoobe oo hal arin kaliya sugaya si ay go'aan rasmi ah uga qaataan shirka dhuusamareeb 3 baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe oo la soo gabagabeeyay iyo arrimo la yaab leh oo lagu ogaaday baaritaankaasi sababta dhabta ah ee madaxweyne Farmaajo uu u soo magacaabi la yahay ra'iisul wasaarihiisa cusub oo la ogaaday xog ku saabsan siideynta Mukhtaar Abu Mansuur oo laga shiray wasiiradii la riday oo saxiixaya heshiisyo dhaqaale ay ku raadinayaan iyo rajo xumo laga muujiyay arrinkaasi iyo lacag sharci darro ah oo laga qaado dadka ka safraya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waa hagaag saaxiibayaal intaas aad daawateen waxay ahayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imikana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto oo aad inagu soo biirto si aad u hesho xogaha iyo wararka aan halkaan alaaba soo gelino idinkuna waxaad ku mahadsantihiin saaxiibayaal ee la socodka wararkeena marka la soo dhawaada muuqaalkan aad daawanaysana like inoo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan macluumaadkan ee xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka socda magaalada dhuusamareeb 3 ayaan ku bilaabayaa maanta iyo madaxweyne Farmaajo oo go'aan lama filaan ka qaatay doorashooyinka dalka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa weli ka socda shirar gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada kale ah Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir iyadoo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaana xalayto ilaa iyo saakay ay kulamo gooni u socdeen mas'uuliyiinta halkaas ku shirsan oo iyagu rajo wanaagsan ka qaba in shirka wax uun ay ka soo baxaan inkastoo ay ku gacan saareen Axmed Madoobe iyo madaxweyne Saciid Dani labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa ka soo horjeestay howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb iyaga oo sheegay in haddii heshiis la gaaro uusan dalku lahayn xukuumad fulisa waxyaabaha soo baxa isla marhaantana aysan dhuusamareeb tagi doonin ilaa laga soo magacaabayo ra'iisul wasaare cusub madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa waxa uu markaasi sheegay in wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb uu furan yahay isaga oo markaas ugu baaqay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan waxa wararka qaar ay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu xiriir joogto ah la sameeyay madaxweynayaasha Puntland iyo waliba sidoo kale Jubbaland gaar ahaan waxa uu xiriir aad u fara badan la sameeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo ay ku wada hadleen khadka telefoonka uuna Qoorqoor si aad u dalbaday in uu san ceebeenin maamulka Galmudug ee waa madaxweyne Dani isla marhaantan uu ka soo qayb galo shirka dhuusamareeb 3 wada hadalka labada madaxweyne oo muddo qaatay ayaa lagu eegay sida ugu dhow ee lagu dhameyn karo diidmada Puntland ka qaadatay ku soo biirista shirka dhuusamareeb madaxweyne Qoorqoor oo isku howlay sidii arrinkan uu xal uga heli lahaa ayay mar kale waxa ay ku ballameen inay xiriir kala sameeyaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dalbaday ama madaxweyne Qoorqoor ka dalbaday in uu ka hoos baxo madaxweyne Farmaajo maadaama Dani uu isagu ka biyadiidsan yahay sida uu u dhaqaaqay sida uu ku dhaqmay madaxweyne Qoorqoor markii uu sheegayay in shirka uu furan yahay shirka magaalada dhuusamareeb ayaa dad badan oo siyaasiyiin ah waxa ay qabaan in aysan ka soo bixi doonin natiijo bedeli karta xaaladda siyaasadeed ee dalka xilli lagu guda jiro waqti kala guur ah dalkana uu isku diyaarinayo doorashooyin madaxweyne Farmaajo ayaa geesta kale lagu soo waramayaa in go'aan lama filaan ah uu ka qaatay doorashooyinka dalka isaga oo markaasi dalbanaya haatan in la isku soo dhawaado isaga oo sidii hore ka soo dhawaanaya madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu mowqifkiisa uu cad yahay isla marhaantaana yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama wax u eg doorasho qof iyo cod ayaa haatan waxa la soo warinayaa in mowqifkiisa uu xoogaa sidii hore iska soo bedelayo isaga oo doonaya in uusan ka soo laaban magaalada dhuusamareeb isaga oo aan wax ka keenin shirka dhuusamareeb 3 maadaama isha lagu wada hayo shirkaasi haddii uu fashilmana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo eed ugu weyn uu dusha saaranayo maadaama uu yahay hogaamiyaha dalka ugu sareeya isla marhaantana wax waliba looga baahan yahay inuu ku dhameeyo tanaasul madaxweyne Farmaajo ayaa iminka u muuqanaya mid ka tanaasulaya qorshihiisii hore kadib markii ay ka soo horjeesteen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo alaaba looga bartay inay mucaaradaan
dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynayaasha Dani iyo Axmed Madoobe ayaa hal arrin oo kaliya sugaya si ay go'aan uga gaaraan shirka Dhuusamareeb 3. waxaa shalayto lagu waday in wafdi hogaaminayo Qoorqoor ay gaaraan magaalada Garowe, balse waxaa arrintaas diiday dowlad goboleedka Puntland kadib markii uu teleefoonkiisa ka jawaabi waayay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo uu xiriir la soo sameeyay madaxweyne Qoorqoor ilaa iyo xalay markii uu soo baxay go'aanka tegitaanka wafdiga Galmudug ee Garowe. waxaa khadka isgaarsiinta lagu laayahay Siciid Dani, taas oo u muuqata in Puntland ay ka careysan tahay hadalka madaxweyne Axmed Qoorqoor ee ahaa in aan markaasi damaanad loo baahnayn. inkasta oo sida la soo sheegayo uu madaxweyne Qoorqoor garowsaday khaladka qaybo kamid ah khudbadiisa, haddana go'aanka uu qaatay ee ah inuu saaxiibkiisa Siciid Dani madaxweynaha Puntland ugu tago Garowe ayaa waxa uu noqday mid dhicisoobay. khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada maamul goboleed ee shirka ka maqan ayay siyaasiyiintu sheegayaan inuu caqabad ku noqday safarka madaxweyne Qoorqoor. waxa kale oo meesha ku qarsoon in labada dowlad goboleed ay ka warsugayaan go'aanka golaha ammaanka ee lagu wado in Khamiista uu soo baxo, iyagoo u arka in qorshaha shirka Dhuusamareeb aanu dhaafsiisnayn in sawir iyo go'aan gadaal ee ka dhicisoobi doona lagu soo gaaro halkaasi. markaana waxaynu eegaynaa baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa la soo gabagabeeyay iyo arrimo la yaab leh oo lagu ogaaday baaritaankaasi. guddigii loo xil saaray baaritaanka weerarkii ee ka dhacay 10kii bishan ee gudaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa kulan ay la yeesheen siyahayaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed waxay ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan natiijadii u soo baxday baaritaankii ay sameeyeen. guddigan oo siyahayaha ra'iisul wasaaraha dalka u xil saaray baaritaan inay ku sameeyaan sababtii keentay dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar 10kii bishan ayaa maanta kulan ay la yeesheen waxa ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ku soo ogaadeen baaritaankii ay soo sameeyeen. waxaana ka mid ahaa in hub iyo rasaas la geeyay xabsiga dhexe kuwaasi oo lagu qariyay hilib iyo jawaan liina. guddiga waxay ogaadeen in maalintii 8 bisha 8 xabsiga dhexe la soo geliyay hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray. waxaa kale guddigu u caddaatay in maalintii 10 bisha loo keenay maxaabiistii meeshii ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay. hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garooway in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaawaan maalintii 10 bisha 8 halkaas oo ay ku isticmaaleen bustoola iyo bambooyin. maxbuuskii ugu horeeyay oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya. maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa loo gudbiyay 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo ay ku jiraan taliyaha iyo taliye ku-xigeenka xabsiga dhexe, kuwaasi oo lagu eedeeyay fudayn iyo dayacaad mas'uuliyadda ay hayeen. waxaa sidoo kale loo xiray falkaasi 6 qof oo shacab ah kuwaasi oo lagu tuhmayo inay xabsiga dhexe hubka geeyeen ay maxaabiistu ku dagaalameen. waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen mas'uul ay sameeyeen dayacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaas oo hadda si fiican loo baaray. waxaa ku jira
dadkaas usluubta lahaayo waxaa weeye waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyihii xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo. waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian, kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qeyb ka qaateen, kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda. waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qeyb weyn ka qaatay falkan. hadda waxaa gacanta ku haaya baaritaankiisa guddiga markuu soo dhammaystiray baaritaankiisa waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida, maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen, dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagixisada la shaqaynayay. iyadoo wax laga baranayo dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar ayuu sheegay wasiirka cadaaladda in la dhaqan geliyo isla markaana uu faray saraakiisha ciidanka asluubta inay ku shaqeeyaan hanaanka iyo shuruucda cadaaladda waddanka u taalla, isla markaana ay dhaqan geliyaan ciidamada asluubta si looga baaqsado in dhacdo la mid ah taasi ay ka dhacdo xabsiga dhexe. waxaa wasaaradda cadaaladda ka howlgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka, sharci number 7 oo soo baxay 30 bishii 12 1971 iyo habraaca xabsiyada dalka. habraacaas oo nambarkiisu yahay 49 oo soo baxay bishii 9 taariikh 9 bishii 8 1984. habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto. waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta, wacyigelin guudna la siiyo maxaabista ku jirto. waxaan faray ciidamada usluubta iyo taliyaashaba in habraacaas iyo shuruucdaas la howlgeliyey ay u hoggaansamaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in lasoo gebagabeeyey dadna loo haayo dhacdadii xanuunka badneed oo xabsiga dhexe ka dhacday. waxaan aad iyo aad ugu xunahay intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay. waxaan leenahay intii ku dhimatay oo ciidamada usluubta ka mid ah oo dagaalkaas ka qeyb qaadatay oo halgamiyaasha ah, waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo. kuwa faldambiyeedka ku kacaya ummadana ma aragtay u horseedayo dhibaato, waxaan leenahay ayagana ciqaabtooda way heli doonaan. dhinaca kalena waxaa la ogaaday sababta madaxweyne farmaajo uu u magacaabi la'yahay ra-iisul wasaarihiisa cusub islamarhaantaana uu dib ugu dhigay, iyadoo la sugayo go'aanada shirka dhuusamareeb 3 oo ay ka maqan yihiin madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland. ayaa waxaa soo baxaya xog ku saabsan sababta uu madaxweyne farmaajo u daahiyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub. xog hoose oo aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo qorshaystay nuuca doorasho ee uu doonayo inay dalka ka dhacdo, islamarkaana qorshahaas uu ka mid noqon doono hawsha ee uu fulin doono ra-iisul wasaaraha cusub. sidaas darteedna aanu magacaabi doonin ra-iisul wasaare inta qorshihiisa uu ku meelmarinayo shirka dhuusamareeb 3. qorshaha doorasho ee madaxweyne farmaajo doonayo oo ku salaysan in muddo 2 sano loogu daro dowladda hadda jirta ayaa qayb ka magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub oo baarlamaanka horgeyn doono in xukuumadda cusub la siiyo muddo ay ku qabato doorasho qof iyo cod. madaxweyne farmaajo ayaa degdeg u tagay magaalada dhuusamareeb 15 bishan si shirka dhuusamareeb 3 isagoo ujeedkiisu ahaa inuu dhaqso ugu dhammaado shirka, balse waxaa caqabad ku noqday maqnaanshaha madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. xaaladda soo wajahday qorshaha madaxweynaha ayaa lagu waday inay ku qasabto in baarlamaanku diro qoraal uu uga codsanayo in loo kordhiyo xilliga magacaabista ra-iisul wasaaraha haddii shirka uu daba dheeraado oo cadaadiska beesha caalamka ay sii kordhiso. dadaalka ugu weyn ee madaxweyne farmaajo ayaa hadda ah in uu shirka dhuusamareeb 3 soo dhammaado laguna ansixiyo qorshaha doorasho ee uu wato, inkastoo wajahayo culays uga imaanaya beesha caalamka iyo madaxda shirkaas ka maqan.
markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan siideynta wadaadka Mukhtaar Abu Mansuur oo laga shiray. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyay in loo istaago siideynta Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo 2 sano ku dhawaad ku xiran magaalada Muqdisho. Laftagareen ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu kala hadlay ee qadiyada Roobow isagana ay u taalo go'aankiisa siideynta balse ay iyagu dalbadeen in la soo daayo. Sanadkii 2018 ayay dowladda Soomaaliya ka soo xirtay Mukhtaar Roobow magaalada Baydhabo isagoo markaas isku diyaarinaya ka qaybgalka doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ase yeeshee musharaxii dowladdu wadatay ayaa guuleystay waana hogaamiyaha haatan ee maamulka Koonfur Galbeed ee Cabdicasiis Laftagareen. Ugu dambeyntiina lacago sharci darro ah ayaa laga qaadaa dadka ka safra garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. markii uu cudurka coronavirus Soomaaliya soo gaaray waxa uu dalku galay dhibaato cusub taasoo laga dhaxlay shaqo la'aan dad badan oo soo wajahday kadib markii duulimaadyada diyaaradaha la joojiyay iyo goobihii waxbarashada oo la xiray. musiibada dad baa mashruuc ka dhigtay waxay saraakiil ka tirsan wasaaradda duulista furteen xafiis dadka ka duulaya COVID-19 looga baaro taasoo qof kasta oo masaafur ah looga qaado $30 waxayna xaruntan ku taallaa dhabarka dambe ee Shamow Hotel. waxaa lagu magacaabaa xarunta dadka lagu baaro Media Park. waa dhibaato kale oo ku soo korortay dadka shacabka ah ee ka safra garoonka iyada oo dawladda dhaqaale badan ka heshay hay'adaha qaramada midoobay oo ka caawiya la dagaalanka COVID-19 waxaana loogu talagalay in adeegyadaas si lacag la'aan loogu sameeyo dadka. qofkii markii uu rabo inuu diyaarad ka raaco garoonka waxaa loo sameeyay wadooyin badan oo lacag looga qaado sida gaadiid ka soo qaada kilometer 4 iyo meelo COVID-19 looga baariyo. arrintan ayaana waxa ay saameyn ku yeelatay dadka danta yar ee ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. intaan wararkooda mar kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.